maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Puntland ayaa u fariisatay dacwadda racfaan qaadashada 8 xukumanayaal ah oo ka tirsanaa ururka argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo horay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn ee Puntland ay horay ugu xukuntay dil toogasho 8 xukumanayaasha ayaa 5 kamid ah waxa ay yihiin horjoogayaashii madaxda u ahaa qorsheyn jireen dilalkii iyo qaraxyadii ka dhici jiray 13 sano ee la soo dhaafay magaalada Gaalkacyo halka 3 kalena ay yihiin shabakad uu madax u ahaa Indhabuur gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus ee dowladda Puntland Sareeye Guuta Maxamuud Cabdi Maxamed ayaa ugu horreyn furay maxkamadda bismillahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله وحين بلابن دونتا محكمة دي لقيس هبون قفكي للسيو خطبة سيدا قريمة إيه حرارين تأو كلب على لقيسنا هيا وحان آدو أمرنا مر لبعض يمر دوبا in muxuu ahay qofkii la siiyo dooda iyo muxuu ahay maxkamaddu ay siiso si tartiib loo dhageysto lana socdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh darafyada dooda u dhaxaysay ee xafiiska xeer ilaalinta iyo qaranada u dooda iyo xukumanayaasha ayaa isweydaarsaday doodo kulul oo midka kale uu ku durayo in doodiisu ay tahay wax kama jiraan qaranada u dooda iyo xukumanayaasha ee kala ah Ismaaciil Xalane Maxamed Cabdi Warsame oo iyagu ah qareeno ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda federaalka Soomaaliya ayaa qareen u ahaa Maxamed Xaashim Muumin oo ah amiirka guud ee xarakada Al-Shabaab ee gobolka Mudug kaas oo ahaa amarkii ugu dambeeyay ee dilalka iyo qaraxyada magaalada Gaalkacyo halka Bukhari Maxamed Maxamuud iyo qareen Muxyidiin Cabdulqaadir Maxamuud iyaguna ay qareeno u ahaayeen ee xukumanayaasha kale qareenada oo dooda ku horeeyay ayaa soo gudbiyay doodooda waxaana ay tilmaameen in kuwan ay u yihiin muwakilinta aysan ahayn kuwa dambi ka galay gudaha Puntland waxaa maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland ay ka codsadeen in doodan si mug leh looga fiirsado mudane gudoomiye garsoorayaal muwakkilkayga Maxamed Xaashim Muumin waxa lagu soo eedeeyay amiirnimo Maxamed Xaashi wuxuu ku eedeysan yahay eedda sida ku qoran inuu amiir yahay laakiin mudane gudoomiye garsoore marka la fiiriyo qodobka waxaan jeclahay inay la socoto ee qorta walaal qodobka 162 xeerka habka ciqaabta wuxuu ka hadlayaa qodobkaasi mudane gudoomiye garsoore mataqaanaa waxa uu leeyahay shakhsiyadda uu leeyahay eedeysanaha aan u ahay wakiilka wuxuu leeyahay qodobka mudane gudoomiye dabeecadda eedeysanaha markaa ka hadlo eedeysanaha dabeecaddiisa waxa waaye nin ganacsada ahaa deegaanka Puntland dowladda Puntland wuxuu magan ugu soo galay sanadkii 2000 ayuu magan ugu soo galay 2000 markuu soo galay magan ganacsi wuxuu ka bilaabay miis qaroole ah waa laga yaqaanaa deegaanka Gaalkacyo wuxuu jeexjeexi jiray qare uu ku iibin jiray wuuna ku dul hooyan jiray habeenkii markii uu dhameeyo miiskaas qaraha gaari gacanka ayuu habeenkii dul hooyan jiray intaas waqtigaas 2000 ilaa maanta aan joogno 2021 Maxamed Xaashi wax lagu haystay ama lagu tuhunsanay ama lagu arkayay ama lagu sheegay midnaba ma jirin waxay dhalatay arintan 2001 sababta ay ku dhalatay waxaan ka rabnaa inuu cadeeyo xafiiska ku soo eedeeyay in ninka uu ahaa amiir Al-Shabaab waxa jirta mudane gudoomiye garsoore qodobka 18 farqadiisa labaad iyo qodob iyo farqadiisa saddexaad ee dastuurka Puntland wuxuu leeyahay mudane gudoomiye garsoore uu qoran yahay sharciga wuxuu leeyahay maxkamadda ay gaar ahaato wuxuu leeyahay qodobka mudane gudoomiye garsoore farqadiisa labaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay nabadgelyo jirkiisa iyo sharaftiisa intii uu ku haystay deegaanka jirkiisa iyo nabadgelyo sharafkiisa intaba deegaanku waa uu ku haystay qodobkaas wuxuu kaloo mudane gudoomiye leeyahay waxa reeban in dambiye la galay xaq nolosha iyo nabadgelyada qofka sida xuquuqa jirdil xarig marka waraysi yaran la yeelanay fursadii ay noo siisay maxkamadda waxaan ka dhaxelnay in muwakkilkeena intii uu xirnay lagu sameeyay waxyaabo jirdil ah taas waxaa noo cadeeyay la kulankii muwakkilkeena waxay ku cadahay mudane gudoomiye garsoore
dhowr jeerna waa laga dhawaajiyey qareennada waxay ku andacoodaan areer 150 xeerka habka ciqaabta qodobka 150 xeerka habka ciqaabta wuxuu leeyahay ballanqaad qasbid garaacid jirdil intaba wuxuu leeyahay qiraal looma adeegsan karo qiraal intaba looguma adeegsan karo waa wax qasab looga soo saaray dhowr jeer waxaa lagu celiyey xafiiska uu ku celiyey qareennadu waxa ay ku doodahayaan arintaas waa waxba kama jiraan laakiin inay wax ka jiraan tahay in kale maxkamadda ayadaa cadeyn doonto waxaan ku codsanaynaa inay dib u fiiriso banayaasha meesha ku xiran in ay ku yaalaan waxyaabo muuqan karo dhaawacyo in kale maxkamaddan ku codsanaynaa inay dib u fiiriso eedaysanayaashan 5 eedaysana ayaa isku si u qoran qof kaste mudane gudoomiye waa qof mas'uul ah mas'uuliyadna qaadi karo qof kasta faldambiyeedka uu leeyahay xafiiska xirnaanta inuu cadeeyo wala taziru waziratu wisra ukhra qof kasta wuxuu leeyahay faldambiyeed wuxuu leeyahay qof kale lama saari karo xukunka maxkamadda sharafta leh oo ay soo saarto hore waxa lagu xukumo waxay tahay dil maxamed xaashi muumin waxaana loo lagu eedeeyay inuu koox dhisay ayada oo loo haynin wax cadeyn ah inuu koox dhisay waxaa jirto koox dhisida marka waxay u yaqaaneen sharciga islaamku wuxuu yaqaanaa mubaashir iyo mutasabbib waxa la yiraahdo jiro qofka shayga la baashiray oo ama dilka geysta iyo kuwii soo abaabulay ama soo dhisay waxa la yiraahdaa mubaashir iyo mutasabbib waxa la yiraahdaa fiqi wuxuu dhahaa majallatu al-ahkam al-adli maadada 9aad waxay leedahay إذا اجتمع المباشر والمتصبب أضيف الحكم إلى المباشر هذه مباشر يا متصبب أي كلمان حكم وحا إسكاله مباشر كإسكاله نكان مباشر نما لو إيداي ماي عدو دلال لو إيداي ماي waxa lagu eedeena inuu yahay amiirka guud taas lagu eedeena hadda eedan kuma qorna xukunkan kuma qorna maxamed xaashi wuxuu dilay waxaas kuma qorna waxa ku qoran inuu yahay amiirkii silsilada guud ay marjica u ahaa inuu yahay ku qoran marka hadii mubaashir iyo mutasabbib ay kulmaan xukunka waxa iskale mubaashirka iskale mutasabbibkana ma yarahu alqaadi buu iskale مباشر محل هذا المباشر هو الذي يحصل الفعل من فعله دون أن يتخلل بينه وبين الفعل فاعل آخر وحكى لما الشيء السوق ذا فاعل وحل هذا متك الصجا النتيجة واحد حياة سنجرين مباشرنا وحواي هو الفاعل للمتصبب المفضي لوقوع ذلك الشيء شيء قاس إنه دعوه وحل جاري أما كاني أيام مباشرة أما قفك هو جارسي ما حل يرى متصبب ليرة الآن مدن قدومي وحن جوجنا محمد حاشي المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومتهم وأنا بريء إلا وحلق السوق الله كانوا ورقداس عطسجا أيي كجرتا وحيالها اللي السوق كرو حقيقة أنا لو جاري كرو حقيقة جرتنا عن عطسنا إنه إن مرتا لجارو محكمتنا عن رجينا إن محكمة دي عدالة وقصر رئيس مدام ويتاي إنه جاريسه waxa intaas oo dhan waxay tahay quraanku wuxuu leeyahay wama yattabi aktharuhum illa dhannan inna dhanna la yuqni min haqq shay dhanniga iyo malada xaqqa jiro iyo xaqiiqada waxba kama bedelaan hadii xaqiiqa jirto haduu yahay wuu yahay waa in lagu cadeeyaa mas'uuliyadiisana waa leeyahay haduu sahayn waa in la cadeeyaa inuu san leeyahay iyo inuu salahayn waa in la cadeeyaa inta kale aan raadinayna waxay tahay in la cadeeyo cadaaladda aayado badan iyo quraanka ka hadlay intaas waxaan maleynaa maadaama maxkamaddu ay tahay maxkamadda cadaaladda inay aad iyo aad ay cadaaladda iyadoo u ilaalinayso sharciga guud in Allah ya'muru bil 'adli an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkum bil 'adli fahkum bayna an-nas bil haqqi wa la tattabi' ahwaahum waxa soo dhan adillada in Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani waxa soo dhan waa adillada madana gudoomiye waxa mar labaad iyo mar saddexaad codsanaa ayadoo gudoonka maxkamaddu iga raaliyahay codsigaas in la iga jawaabo maxkamaddu waa mahadsantahay abukaate bukhari maxamed waxaan maxkamadda qareena u ah Abdulqaadir Ahmed Umal ina Maryam Maxamed soddon jir ku dhashay Muqdisho deegaan gaalkacyo mudan gudoomiye asbaabtii oo qoraal ah asbaabta rafcaanka uga soo qaadanay waxaan la wadaagaa kuwii hore sidii xukunkii hore intii hore kale baan asbaabihii hore u la wadaagna aan uga soo qaadanay iyadoo qoraalana waxa haya kaaliyaha maxkamadda mudane gudoomiye garsooreyaal waxaan rabaa inaan in yar ku kabo aan ku xoojiyo xukunkan anagu ka soo qaadanay
mudane gudoomiye garsoorayaal mawakilkayga Cabdulqaadir Axmed Umal waxa xafiiska xeer ilaalintu ee hore ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gobolada Mudug iyo Cayn ku soo eedeysay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab una amiir ku xigeen ka ahaa gobolka Mudug ururkaas iyadoo aan la keenin wax cadeynaya arinta iyada maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa eedda xafiiska xeer ilaalintu haddaanay waafaqsanayn qodobka 71 aysan waafaqsanayn xaq wuxuu u leeyahay inuu tirtiro xaq buu leeyahay inuu soo bedelo haday maxkamaddu ka ogolaato sida 112 xeerka habka uu leeyahay xaq buu u leeyahay laakiin inda cadayska iyo nooca iyo dokumentigaasi ma aha mid eed xafiis xeer ilaalin maxkamad horteed ama maxkamad sare la soo taagi karo waxaan maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dambiyada culus dawladda Puntland fadhigeeda magaalada Gaalkacyo u soo qadimaya rafcan qaadashada xukunka maxkamadda darajada koowaad rafcanka ka soo qaadanay waana seeto soo socota mudane gudoomiye garsoorayaal magacay waa Qariin Bukhari Maxamed ka tirsan xarunta gargaarka sharciga ee Puntland qareena oo ah Cabdirasaaq Axmed Buraale Muuse waxaan rafcan ka soo qaadanay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gobolada Mudug iyo Cayn ee sumadiisu ahayd 121 ku taariikhaysan 21 bishii afraad 2021 asbaa rafcan qaadashadeeda waafaqsan qodobka 209 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waana sida soo socota faahfaahinta rafcan qaadashadeeda mudane gudoomiye garsoorayaal mawakilkaygu wuxuu sheegay inuu san galin dambiga lagu eedeynayo maxkamadda darajada koowaad sidaas la mid ah markii la weydiiyay sida uu qabo qodobka 104 wuxuu ku jawaabay in uu san galin dambiga lagu eedeynayo sida darteed asbaabta aan rafcaanka maxkamadda uga soo qaadanay waxa kamid ah mawakilkaygu wuxuu noo sheegay in dhibaato loo geystay aan maxkamadda ka codsanay in wax laga weydiiyo afkiisa uu ku wareysto maadaama uu maxkamadda hor joogo cadaaladna ay tahay maxkamadduna xaq u leedahay in la weydiiyo inta maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad gobolada Mudug iyo Cayn maxkamadda ma horkeenin wax marag muujin ama qalab ah oo sida uu sheegayo qodobka 202 saddexaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ee laga maarmaan u tahay faldambiyeed kasto ciqaab ah in lagu keeno wixii cadeymo ah ama wixii marag muujin ah oo lagu hayo wax marag muujinana maxkamadda lama horkeenin faahfaahinta rafcaanka mudane gudoomiye iyo garsoorayaal muwakilkayga waxa lagu eedeeyay xeer lambartan ee la dagaalanka argagixisada Puntland qodobkiisa labaad faqradiisa labaad wuxuuna u qoran yahay sidaan dhiirigelinta qarinta gacansiinta iyo faldambiyeed lagu taageero argagixinta markay ku cadaato waxa lagu ciqaabayaa 10 sano ilaa xabsi daa'im iyo hantidii aw faldambiyeedka ku galay ama ku gashay dawladdu la wareegto asbaabta rafcaanka u qaadanayo sida uu qabo qodobka 215 asbaabta rafcaanka waxa kamid ah maxkamadda waxay noo diiday waqti ku filan oo aan difaacayaga ku soo gudbino maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug iyo Cayn labo maxkamaddu waxay naga diiday in la baaro caafimaadkiisa maadaama ay iskhilaafsanaayeen hadallada ayna ka muuqatay xanuun aad u daran iyo diif waa muwakilkayga ninka la yiraaho Maxamed Raage lambar 3 maxkamaddii darajada koowaad waxay baal martay qodobka 119 faqradiisa labaad ee heerka ciqaabta Soomaaliya lambar 4 muwakilkaygu wuxuu ii sheegay in la jir dilay ayna ku yeelaan nabaro badan intaas waa asbaabta xukunkayga ee asbaabta rafcaan qaadashadayda
maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Puntland u soo gudbiyay labada muwakkil ee hore ee maxkamaddu amartay inaan soo gudbiyo racfaan qaadashadooda iyo difaacooda waan kala qaaday sabab jira awgood muwakkilka koowaad oo ah Maxamed Raage Cilmi waxyaalaha u kala qaaday waxa kamid ah muwakkilka koowaad ee ah Maxamed Raage Cilmi Indhabuur maxkamaddii darajada koowaadna waxaan ka sheegay haddana asbaabteeda kamid ahayd inuu yahay nin xanuunsan dhimir ahaan oo dhimirka looga jiro markaan arrinta xaqiiqsaday maxkamaddii horena aan ka codsaday waxaan maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Puntland u qoray xaashi ku taariikhaysan كوي الله تنك بشي أفراد السنة كلا وكون يكوي الله تنك إلى أي هذا مدعين إن لا يجسوا شوابي مرة سورة جرين ما دام موكل كيو أو يهينين حنونسن أو دمرهان لوجت شرا مسكح هذا إهريات جسنا أي حقيقتين وحنون صدي ديفتنا أي هيد متك موقتي مرة كقار كنا نرفع قوام مدبدا أو دعي حتى دبر كأي وحكسوا جارين دعتان أو دعي أو جود Indhabuur ama Sheekh Maxamed Raage Cilmi waxaan sidoo kale maxkamadda sharafta ka codsanaya inay dacwadiisana dib iigu dhigto xaaladiisa caafimaadna muwakkilkaygu ilaa iyo maalintii aan muwakkilka u noqday aan codsanayay in xaaladiisa caafimaad baaritaan caafimaad lagu sameeyo maadaama anigu aan ahayn dhakhtar dhimirka iyo shaqada caafimaadka wax ka garanaya laakiin uu muwakkilkaygu yahay xaqna uu leeyahay sharciguna uu ogolaanayo sida konton iyo labo xeerka habka qaabta Soomaaliya iyo 142 qofku hadduu xanuunsan yahay oo xaaladiisa caafimaad in la hubiyo ay muhiim tahay waajibna ay tahay sharciya ila maxkamaddu ma xukunteen qof xaaladiisa caafimaad aysan fadhiin oo majnuunaba Ilaahay baa ka dulqaaday saadarteed arrintaas si loo hubiyo maxkamadda sharafta leh ee ciidamada qalabka sida ee Puntland intaan dacwada la gudagelin Maxamed Raage Cilmi Indhabuur oo 55 jir ah oo nin dhimirka ka xanuunsanaya cadaymo badan aan u helayo in codsigaas ay iga aqbasho oo aan dacwadiisa la gelin lana gudagelin codsigaasna la iga aqbalo loona gudbiyo dhakhtar dhimir waa rajaynaya insha Allah taala in codsigaas maxkamaddu ay iga aqbasho maadaama uu yahay midaan dhowr jeer ku celceliyay way mahadsan tahay maxkamaddu waxaan u gudbayaa eedeysa muwakkilkayga labaad racfaan qaadasho xukunka sumadiisu ay tahay maada ka /عاقة /دأس /مدق يعين إبر waxaan leeyahay eber hal eber cheatin 22 / labada kun iyo 22 xukunka taariikhdu waxa weeye 22 bisha afraad ee sanadka 2022 isku taariikh bay ahaayeen laakiin waxa uu kala qaaday sababta awgeed aniga ah qaran Maxamed Cabdiqaadir Maxamuud sidoo kale oo ah qareen Maxamed Cumar Muudey Maxamed cadan ninka loo yaqaan 41 jir ina Faadimo Abuukar Maxamed ku dhashay marko degan gaalkacayo waxaan maxkamadda sharafta leh oo ay sida tooska ugu socoto racfaankan halkan ugu soo gudbinaya racfaankayga oo ah oo waafaqsan qodobka 214 xadidida waqtiga oogista racfaanka waana sidan soo socota faahfaahin mudane gudoomiye iyo garsoorayaal muwakkilkayga waxa lagu eedeeyay xeer lambartan oo xeerka argagixisada Puntland oo la dagaalanka argagixisada Puntland oo qoraya qodobkiisa labaad faqradiisa koowaad wuxuuna u qoran yahay sida tan dhiirigelin qarin gacansiin iyo faldambiyeed kasta oo lagu taageerayo markay ku cadaato waxa lagu xukumayaa ciqaabta dhan 10 sano ilaa xabsi daa'im iyo hantidii oo la wareego faldambiyeedka ku galay mudane gudoomiye iyo garsoorayaal muwakkilkaygu wuxuu ii sheegay inuusan gelin dambiga gabi ahaanba lagu eedeeyay wuxuuna maxkamadda horteeda ka sheegay inuusan gelin dambiga lagu eedeynayo sida uu qodobka 114 xarafkiisa C
oo ku jawaabi karo dembiga ma gelin. xeer ilaaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Puntland gaashaanle sare Maxamuud Faarax Maxamed ayaa maxkamadda ka akhriyay eedaha loo haysta 8 xukumane ee 5 kamid ay yihiin horjoogayaashii madaxda u ahaa khidadda iyo aqligan uu ahaa dilalka iyo qaraxyada magaalada Gaalkacyo. waxa uu maxkamadda hor keenay muuqaalo qiraal oo ay ku qiranayaan dambiyadii ay ka galeen gudaha Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo iyo confessionkii ay maxkamadda ciidamada qalabka sida garsoorayaal ka tirsan ay ka hor qareen. gudoomiye garsoorayaal waxaan codsan lahaa maxkamadda sharafta leh ka codsan lahaa xukunkii waa ka inay dhugato oo haddii ay farqada goowaa tahay laga istobgarayo oo laga joojiyo qareenku hadallada oo maxkamadda ka horanayo sharciga lagama been sheegi karo si kale waxa loo difaaci karaa difaacagu hanaanu kugu banaan yahay baa jira laakiin lagama been sheego qaanuunku siduu u qoran yahay waa sida gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh haddii aan uga gudbo kelmadihii ahaa in dhabuur waa xanuunsan yahay ninka la yiraahdo maxamed cabdi raaga cilmi oo in dhabuur ku magac dheer xukumanaha racfaanlaha ah ma xanuunsana gudoomiye garsoorayaal waa nin amiir ah oo wuxuu hogaamiyaa kooxda inteeda kale ayuu madax u yahay waali iyo sheekadaasi iyadu horta xagga ha tagto waa ninka hogaaminaya tiimka uu saddexda ku yahay ee ka hooseeya Cabdulqaadir Axmed Buraale iyo Maxamed Cumar Maadey ninka la yiraahdo waana wax cadaan ah oo ay saddexdooduba qiraal ku yihiin garsoore hortiisa gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xataa dadka noocaan oo kaleeta ah qareen hanaanka u dooda inuu maxkamadda hor yimaado ma justification kale la iman kara laakiin ma oran karo fal dambiyeedka ma gelin qiraal garsoore iyagoo ah bay gal dacwadeedka ku jiraan oo gal dacwadeedka maxkamaddu haysato iyo gal dacwadeedka xeeraalintu haysato iyo kii maxkamadda darajada koowaadba convention-koodii ay ku ogolaadeen fal dambiyeedka inay galeen baa meesha yaala gudoomiye garsoorayaal in dhabuurna ma waala waxna ma qabo team leader weeye nin dal hogaami ummadan hogaaminayo dad baabi'inayo weeye inta haddaan uga tago qareenka hadalkiisa uu sida qaldan qaanuunka u akhriyayo iyo justification kan ama cudurdaar kan aan jirin oo xanuun haddaan inta kaga gudbo waxaan yar dib ugu noqonayaa dilka waxay leeyihiin waa la dilay waa la qasbay war kelmadda gudoomiye garsoorayaal inay ka waantoobaan baan doonay dadka baaraya dadakan waa dad Soomaaliyeed wax shakhsiyada oo cadaawada hooy u qabaan ma jirto wax dilkoodana ma basaaraba wax dilihii ma saar qofkii waa caafimaad qaba waa la wareysanayaa siyaabo kaleeto meel baa la fariisanaya baaritaan baa la sameynaya hebel baa wax noo sheegay warbal wuxuu noo sheegay noo faahfaahay xoogaa wuxuu soranaya hebel baa wax sheegay markaas hanaan loo baaraa jira laakiin dil iyo qasbid iyo waxaas waxyaal maaha maxkamadda tan gudaheeda waxa laga sii daayay rag fara badan oo iyaga mar la wada qabtay baaristii ragga kana waxbay qirteen raggi kaleetona waxbana ma qiran kiisna waa lagu waayay iridaasay ka baxeen gudoomiye garsoorayaal waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inaan dadka iyo dalkana la sharaf ridin oo aan la oran dad baa qasab iyo leen gaalkacyo wax looga abuuray dad aan dhimir kala ayna laga sheegin qodobadana inta la duwo waxyaabo ay sheegeen qaanuunkii la qorto baarlamaanku ansixiyana aan si kale loo akhriin bacdal inta gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland iyadoo oo tixraacaysa qoraalka ay qareemada difaacaya xukuumanayaasha kala ah maxamed cabdi raage cilmi in dhabuur ina khadro Abdullaahi konton iyo shan jir ah ku dhashay Kismaayo degan Gaalkacyo shaqadiisa uu ku dhuumanayna ay ahayd dhismaha ninka shaqeeya dhismaha guryaha labo Cabdirasaaq Axmed Buraale Muuse ina Ruqiyo Xasan
32 jir ah ku dhashay jubbada hoose degan gaalkacyo 3 maxamed cumar muudey magaciisa xarakiga ah waa maxamed cadde ina faadumo abuukar maxamed 41 jir ah ku dhashay marka degan gaalkacyo xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida dawladda Puntland iyada oo tix raacaysa xukunka sumadiisu tahay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida dambiyada culus gobolka mudug iyo cayn 0100 jiitin 21 jiitin 20 maalin arbaca ah ba xukunka la qoray aan tix raacayo gudoomiye garsoorayaal ee la qoray 21 bishii afraad 2021 kana soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee gobolada mudug iyo cayn kuna saabsanaa xukuumanayaasha racfaanlayaasha ah ee sare ku qoran waa kuwan hadda soo akhriyayay kuwaas oo ay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba dil toogasho ah iyadoo maxkamaddu u cuskatay xeer lambar 10 qodobkiisa 2 faqradiisa koowaad ee la dagaalanka argagixisada dawladda Puntland waxaan maxkamadda racfaanka ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus halkan uga soo gudbinayaa eedaynta xukuumanayaasha racfaanlayaasha ah iyo ka jawaabidda racfaanka qareemadooda waana sida tan hoos ku qoran gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh dhammaan xukuumanayaasha racfaanlayaasha ah ee kala ah maxamed cabdi raage cabdirasaaq axmed buraale iyo maxamed cumar muudey waxa ay ka wada tirsan yihiin ururka argagixisada ah ee al-shabaab waxayna dhammaantood geysteen faldambiyeedyo ka dhan ah bulshada Soomaaliyeed iyo tan reer Puntland dhammaan xukuumanayaasha racfaanlayaasha ah waa gacan ku dhiiglayaal daadiyay dhiigga muwaadiniinta reer Puntland ah oo aan waxba galabsan waxayna xukuumanayaasha racfaanlayaasha ah dhammaantood qiraal ku yihiin in ay geysteen dilal iyo dhaawacyo qorshaysan oo ay la beegsadeen dad birimageyda ah sida ku cadaymahooda mid kasta cadayntiisa garsoore hortiisa gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xukuumanaha koowaad maxamed cabdi raage cilmi indhabuur ninka la yiraahdo tababarka waxa uu ku soo qaatay buulo berde wuxuuna tababarka ku jiray muddo 3 bilooda kadib gaalkacaya ayuu u soo bedeshay wuxuu ku soo noqday wuxuuna noqday horjooge kooxda waxa ka sareeya amiirka koowaad ee magaciisa la yiraahdo maxamed xaash wuu fadhiyaa maxamed xaash hadda wuxuuna ku amray 5 hawlgal oo dilal qorshaysan ah dilkii koowaad wuxuu ku dilay 2 gabdhood oo kala ah xaliimo madoobe 2 sacdiya cabdi feer kaga jire waa naanaysu gudoomiye garsoorayaal wuxuu ku dilay makhaayada aadan madoobe dhabarkeeda dambe ayuu 2 gabdhood ku dilay waxaana la dilay 2 gabdhood Ibraahim Siidow oo hadda xabsiga ka baxsaday ninkaasi dadkii la soo qabtay buu ahaa xabsiguna ka baxsaday dilkii labaad wuxuu ku dhaawacay gabar wariye ah oo la yiraahdo Xurriya Cabdulqaadir waxaa la dhaawacay oo ninka la dilay Ibraahim Siidow iyo Cali Mahdi amarka waxa baxshay maxamed xaashi baa amarkaana baxshay hawlgalkii saddexaad wuxuu ka dhacay masjidka tabliiqa oo ku yaala qodka cusbada meesha cusbada way wuxuu ku dilay mulkiilihii mareero isbeer baarti 2 cabdirasaaq axmed buraale gudoomiye garsoorayaal waxaa la dilay nin la yiraahdo Ibraahim Siidow waxayna ku dileen hoteelka kulmiye hortiisa
gudoomiye garsoorayaal howlgalkii afraad wuxuu ku dilay gudoomiyihii xaafadda garsoor marxuun bidaar wuxuuna ku dileen gurigiisa hortiisa waxaana la socday ibraahim siidow iyo cali mahdi bal inta faldambiyeedyo la kulansaday oo la taxaayo baldaya oo qiraalka ay ku wada yihiin gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh howlgalkii shanaad wuxuu ku dilay wiil uu da'diisa ku sheegay 20 jir muuna sheegin magaciisa wuxuuna ku dilay aagga masaajidka imaamul shaafici ninkaa wuxuu yidhi ninkaasaan dilay confessionkii buu ku sheegay wiil dhallinyaro ah oo 20 jir ah ayuu ku sheegay laakiin magaciisii ma aqaan buu yidhi waa nin uun loo amray inuu maaragtay dilkaa ku fuliyo waxaana kala qayb galay dilkaas cali mahdi iyo buraale labadaasina waa la socdeen oo dilkay la fuliyeen waxaad maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay eegto qiraalka uu garsoore hortii ku bixiyey gudoomiye garsoorayaal xukumanaha saddexaad maxamed cumar muudey maxamed cadde xukumanaha racfaanlaha ah wuxuu ku biiray ururka argagixisada ah ee al-shabaab 2011kii tababarka wuxuu ku soo qaatay shabeellada hoose magaalada marka waxaana loo tababaray qaybta amniyaadka muddo markii uu ka shaqaynayay amniyaadka wuxuu u dalacay qaybta qaraxyada wuxuuna ku qornaa gaariga qaada qaraxyada ismiidaaminta ah inuu geeyo meeshii uu isku qarxin lahaa iyo aagga lala rabo inuu qaraxu ka dhaco waxaana kala wareegi jiray isagu goortuu baabuurka la soo buuxiyo la soo raro soo kaxayo ayaa lagala wareegi jiray wuxuuna soo kaxeeyey labadii gaari ee qaraxa saaraa laba gaari oo qaraxu saaran yahay oo uu keenay goobtii lagu talagalay inay ku qarxaan oo qaraxu ka dhaco waayahay qaraxii koowaad wuxuu gaariga qaraxu ku diyaarsanaa ka soo kaxeeyey garaashkii ku yaala godka cusbada waxaana u soo dhiibay labada amiir ee kala ah amiir maxamed xaashi muumin iyo jeeri labadaasaa u soo dhiibay oo labada amiirkii weynaa iyo ku-xigeenkii ah gudoomiye garsoorayaal jeeri wuxuu ku amray inuu si taxadar leh u kaxeeyo baabuurka qaraxa ka buuxo isla markaasna uu geeyo macnaha goobtii loogu talagalay goobtaas uu jeeri uga sii hor maray markii uu keenay gaarigii waxaa kala wareegay gaarigii jeeri iyo cabdirisaaq maxamed ummal oo wada jooga gaarigiina iyaga ayuu ku wareejiyey waxaana saaraa wiilkii isku qarxinayay gaarigaas noohada ah warbal ninkaas intuu bele ka soo shaqeeyay waaba ku daalay gaarigii labaad ee qaraxu saarnaa wuxuu ka soo kaxeeyey garaashka ku dhow shirkadda hormuud waxaana u soo dhiibay amiir maxamed xaashi iyo jeeri wuxuuna keenay meel u dhow xarunta gobolka mudug xilli barqo dheer ah waxaana kala wareegay jeeri iyo wiilkii isku qarxin lahaa gaarigaas waa tahay caddayntaa iyada ah gudoomiye garsoorayaal dhammaan isaga ayaa tifaftiray ka warramay
intaas oo dhan in sidaa gaariga uu soo kaxayey in sidaa loogala wareegayey in sidaa qaraxyada lagu fulinayey waa wax uu isagu ku qoray garsoore hortii in saddexdaa nin ee halkaa aan ka akhrinay ee maxamed cabdi raage cilmi iyo cabdirisaaq axmed buraale iyo maxamed cumar muudey in ay yihiin ururka argagixisada ah ee al-shabaab intaa aan ka soo warramayna inay si dhab ah oo ay wada jiraan ay uga shaqeeyeen ummaddiina ay sidaas dhammaan ugu laayeen qurgooyo gardarra ah qareemada u doodaya xukumanayaasha racfaanlayaasha ah ee kala ah maxamed xaashi muumin sabriye abudayib baa la yidhaahdaa magaciisa xarakiga ah ini faadumo nuur 52 jir weeye labo cabdulqaadir axmed umul warsame abu cabdulaahi ayaa magaciisa xarakiga la yiraahdaa ina maryan maxamed 30 jir ah saddex maxamed axmed cali cuuke jeeri ini faadumo maxamed 36 jir afar qaasin cabdulqaadir jaylaani xuseen al-turaabi baa lagu yiraahdaa magaciisa xarakiga ah ina abooto maxamed 30 jir weeye lambar 5 maxamed cabdulaahi ayaanle abayle ayaa lagu yiraahdaa magaca xarakiga ah ina caasho cali jeelle 35 jir ah gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland iyada oo tix raacaysa xukunka lambarkiisu yahay maadaaka isbaaro ciidamada qalabka sida isbaaro dambiyada culus isbaaro gobolada mudug iyo cayn ee tirsigiisu yahay 013020 iyo kowda ee la qoray maalin axada isla markaasna maalintaasi ay taariikhdeedu ahayd 2 bishii shanaad 2020 iyo kowda kana soo baxday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada mudug iyo cayn kuna saabsanayd xukumanayaasha racfaanlayaasha ah ee sare ku qoran kuwaas oo ay maxkamaddu ku xukuntay mid kasta dil toogasho ah iyada oo maxkamadda darajada koowaad u cuskatay xeerka lambarkiisu yahay 10 qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad ee la dagaalanka argagixisada gudoomiye garsoorayaal waxaan maxkamadda sharafta leh ee racfaanka maxkamadda sare ee racfaanka ciidamada qalabka sida dambiyada culus halkan uga soo gudbinaya eedaynta xukumanayaasha racfaanlayaasha iyo ka jawaabista qareemada difaacaya xukumanayaasha racfaanlayaasha ee sare ku qoran waana sida tan hoos ku qoran gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xukumanayaasha racfaanlayaasha ah waxay ka wada tirsan yihiin ururka argagixisada ah ee al-shabaab waxayna dhammaantood geysteen faldambiyeedyo ka dhan ah bulshada Soomaaliyeed iyo tan Puntland dhammaan xukumanayaasha racfaanlayaasha ah waa gacan ku dhiiglayaal daadiyay dhiigga muwaadiniinta reer Puntland ah oo aan waxba galabsan waxayna geysteen faldambiyeedyo argagixiso oo lid ku ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo tan reer Puntland gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xukumanayaasha racfaanlayaasha ah qareemadooda racfaankii ay soo qorteen aan kaga jawaabay gudoomiye garsoorayaal xukumanaha racfaanlaa ah ee koowaad maxamed xaashi muumin sabriye magaciisa xarakiga ayna uu yahay abudayib ina faadumo nuur sabriye 20 iyo da'diisuna ay tahay 52 jir ku dhashay Hiiraan beledweyne degan gaalkacayo shaqadii uu ku dhuumanayay maadaama uu argagixisada kamid ahaa uu ku dhuumanayana ay ahayd ganacsade kaas oo maaragtay argagixisada al-shabaab wuxuuna amiir ka yahay guud ahaan
argagixisada amiir uga yahay gobolka mudug ayuu wuxuu uga yahay amiir argagixisada al-shabaab buu gobolkaas waxay ugu magacowdeen inuu u ahaado amiir wuxuuna argagixisada ku biiray 2008 ilaa hadda intii ciidamadu gacanta ku dhigeenna wuxuu hayay shaqadaas amiirnimada gobolkaas oo dhan uu nimanka ku xakumo gudoomiye garsoorayaal xukumanaha labaad Cabdulqaadir Axmed Umul waa ninkii aan ka soo hadlay oo ay qoranayeen oo markii ay hadar gudoomiye garsoorayaal xukumanaha saddexaad Maxamed Axmed Cali Cuuke waa ninka jeeri la yiraahdo ina Faaruma Maxamed Abuukar 36 jir weeye wuxuu ku dhashay degmada Cabdilcasiis ee magaalada Xamar wuxuuna degan yahay Gaalkacyo ninkaasi wuxuu ku gaban jiray bajaaj nin amiir buu ahaa oo argagixisada u jooga laakiin bajaaj lu iska dhigi jiray kaasoo inuu ka mid yahay wuxuuna ka mid ahaa argagixisada al-shabaab horena wuxuu uga soo mid noqday muqaawimadii Muqdisho ka dagaalami jiray xilligii dawladdii ku meel gaarka ahayd wuxuuna ku biiray wuxuuna u soo wareegay ururka argagixisada ah ee al-shabaab sanadkii 2007 horteedii tababar wuxuu ku soo qaatay Xamar iskuulka Xamar Jadiid ee magaalada Muqdisho wuxuuna ku dhaawacmay xilligii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa dagaaladii muqaawimadu la gashay dawladda wuxuuna ka dhaawacmay lugta midig waxaana loo soo bedelay gobolka mudug magaalada Gaalkacyo wuxuuna u keenay amiirka guud ee ururka al-shabaab u fadhiya gobolka mudug oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Xaashi Muumin waa kan maxkamadda horteeda fadhiya warqadiisi bedelka taas uu keenay xukumanaha afraad Qaasin Cabdulqaadir Jeylaani Xuseen ina Abooto Maxamed Nuurudiin 30 jir ah ku dhashay marka degan Gaalkacyo shaqada uu ku gabadaana ahayd kawaanle nin hilibla ah buu iska dhigi jiray wuxuuna ururka argagixisada al-shabaab ku soo biiray 2008 tababarka wuxuu ku soo qaatay marka ninkaasina sidaas uu halka hawsha uga soo galay gudoomiye garsoorayaal xukumanaha shanaad Maxamed Cabdullaahi Ayaanle Abayle ninka magaca xarakiga ah Abayle la yiraahdo ina Caasho Cali Jeelle 35 jir ah ku dhashay Mareerey degan Gaalkacyo shaqada uu ku gaban jirana ay ahayd kawaanle kaasoo ka tirsan ururka argagixisada al-shabaab wuxuuna ku biiray bishii 7 ee 2008 dhammaan xukumanayaashaas aan kor ku soo sheegay waa isku tiim waxa madax u ah oo tiimka madax u ah ninka la yiraahdo Maxamed Xaashi waxay dhiseen 3 tiim oo ka dambeeyay bay dhiseen waxay geysteen qurgooyooyin fara badan iyo qaraxyo gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland markii ay akhriday dhammaan qoraalada ku jira ama uu ka kooban yahay gal dacwadeedkan xeer ilaalintu markii ay aragtay qiraalka xukumanayaasha racfaanlayaasha ah ee garsoore hortii
gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xeer ilaalintu markii ay aragtay qiraalka maqal iyo muuqaalka ah ee xukumanayaasha racfaanlayaasha ah waxaa u caddaatay xeer ilaalinta isla markaasna ay maxkamadda hor keentay isla markaasna ay hadda gabagabadeedii soo jeedinaysaa waxaa caddaatay in dembi dhacay kuwa galayna ay yihiin xukumanayaasha racfaanlayaasha ah ee kala ah kow maxamed xaashi muumin sabriye magaciisa xarakigaa la yidhaahdo abudayib ina faadumo nuur 52 jir ah labo cabdulqaadir axmed umul warsame magaciisa xarakigaahina uu yahay abu cabdulaahi ina maryan maxamed 30 jir ah saddex maxamed axmed cali cuuke jeeri ayuu yahay magaciisa xarakiga ah ina faadumo maxamed 36 jir ah afar qaasim cabdulqaadir jaylaani xuseen magaciisa xarakiga ahina uu yahay alturaabi ina abooto maxamed 30 jir ah shan maxamed cabdulaahi ayaanle magaciisa xarakigaana uu yahay abayle ina caasho cali jeelle 35 jir ah gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maadaama ay caddahay inay faldembiyeedkaas geysteen oo xukumanayaasha racfaanlayaasha ee aan soo akhriyey maadaama ay caddaatay oo maqal iyo muuqaalna lagu soo caddeeyey isla markaasna ay leeyihiin caddayn garsoore hortiisa waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay dacwadan mariso maxkamadda sare nidaamka garsoorka isla markaasna ay raacdo ama ay ku raacdo xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada mudug iyo cayn xukunkaas oo ahaa dil toogasho ah isla markaasna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland ay dil toogasho ah ku xukunto xukumanayaasha racfaanlayaasha ah ee kala ah maxamed xaashi muumin cabdulqaadir axmed umul maxamed axmed cali qaasim cabdulqaadir jaylaani iyo maxamed cabdulaahi ayaanle iyada oo maxkamaddu u cuskanaysa xeer lambar 10 qodobkiisa 2 faqradiisa 1 iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maadaama ay la yimaadeen dil qurgooye ah oo fara badan oo soo socotay ilaa intii ay ku biireen argagixisada al-shabaab ilaa xilligii gacanta lagu soo dhigay intii ka dhaxaysay maadaama ay sameynayeen qurgooyo gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan u gudbay gal dacwadeedkii labaad gabagabadiisii gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee dawladda Puntland markii ay akhriday dhammaan qoraalada uu ka kooban yahay gal dacwadeedkani waxaa cad in dambi dhacay kuwa galayna ay yihiin xukumanayaasha racfaanlayaasha ah ee kala ah maxamed cabdi raaga cilmi indhabuur ina khadro cabdulaahi 55 jir ah ku dhashay Kismaayo degan gaalkacayo labo cabdirisaaq axmed buraale muuse ina ruqiyo xasan 32 jir ah ku dhashay jubbada hoose degan gaalkacayo saddex maxamed cumar muudey ina faadumo abuukar 41 jir ah ku dhashay marka degan gaalkacayo sidaas daraaddeed waxaan maxkamadda sharafta leh ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ka codsanayaa inay xukunka ku raacdo maxkamaddii darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus iyo gobolada mudug iyo cayn xukunkaas oo ahaa
dil toogasho ah isla markaasna ay maxkamadda racfaanka ciidamada qalabka sida ay ku xukunto dil toogasho ah xukumanayaasha kala ah Maxamed Cabdi Raage Cabdirasaaq Axmed Buraale iyo Maxamed Cumar Muudey iyada oo maxkamaddu u cuskanaysa xeerka lambarkiisu yahay lambar 10 qodobkiisa labaad faqradda koowaad ee la dagaalanka argagixisada iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland sareeya guuto Maxamuud Cabdi Maxamed ayaa gunaanadkii maxkamadda soo xiray waxaana uu sheegay in go'aanka maxkamadda dib laga soo sheegi doono aan leeyahay maxkamadda ciidamada qalabka soo racfaanka oo maanta tag u soo fariisatay halkaas inuu kugu xiran yahay wixii muxuu ahayto la isugu soo noqonayo iyo waxa ka dambeeyana maxkamadda go'aan ka soo gaari doonta waa in soo gudbin doona maxkamaddana waa xiran tahay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maalmahan waxa maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland ay u fadhidaa 18 xukumanayaal ah oo horay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay ku soo xukuntay dil toogasho waxa la filayaa markii xukunadan ay dhamaadaan maxkamadda sare la xiriira in dib loogu laaban doono xukumadii kale ee dhimanaa ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland Maxamed Cabdi Wali Nuur Timir